daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay oo xariga lagaga jareeyay dhismaha dugsi sare oo laga hirgeliyay degmada Booq gaar ahaan magaalada waxaana dhismahan dugsigan sare hirgeliyay mid kamid ah jaaliyadaha dibadda oo ku nool cariga Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota oo lagu magacaabo Aadan Ciise Cali waxaana xafladan ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan heer qaar kamid ah jaalidaha dibadda ganacsato qaybaha bulshada ay ka kooban tahay iyo waliba marti sharaf kale oo aad farabadan mas'uuliyiintana waxa kamid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Abubakar Maxamed Khaliif la taliyaha xafiiska madaxweynaha arrimaha sharciga mudane Ibrahim Ahmed maariyaha kulliyadda farsamada gacanta iyo biyaha mudane Umar Daahir Xoosh iyo injineer Cabdirasaaq waxa kale oo xafladan furitaankeeda ka qayb galay mudane Aadan Ciise Cali oo isagoo ahaa ninka ugu deeqay qarashan ku baxay dhismahan dugsiga sare waxaan halka laga soo jeediyay fariin isugu jirta hambalyo iyo salaan looga siday bulshada qaybaheeda kala duwan iyo jaaliyada dibadda madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar isagoo mahadnaq gaar ah u diray mudane Aadan Ciise Cali oo isagoo mar labaad u xil qaamay hirgelinta dugsigan sare isagoo Aadan Ciise Cali hore u hirgeliyay dhismaha dugsi hoose dhexe kadibna ay bulshada ku dhaqan degmada Booq codsatay in uu hirgeliyo dhisme dugsi sare ah oo ka kooban 18 qol iyo waliba xafiisyo waxaana dugsigan sare oo dhismihiisu aad u qurux badan yahay ku baxay in ka badan 400 oo kun oo dollarka Mareykanka ah oo u dhiganta 7 milyan oo bir waxaana furitaankii xafladan hadallo kooban halka ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Abubakar Maxamed mas'uuliyiin oo kamid yahay la taliyaha xafiiska madaxweynaha arrimaha sharciga mudane Ibrahim iyo maariyaha kulliyadda farsamada gacanta iyo biyaha ee dawladda deegaanka Soomaalida mudane Umar Daahir Xoosh waxa halkaasna ka hadlay Aadan Ciise Cali oo isagoo ahaa ninka hirgeliyay bixiye kharashka fikirka iyo waliba dugsigan sare waxaana kaloo xafladan ka hadlay qaar kamid ah maamulka degmada Booq oo kamid yahay gudoomiye ku xigeenka degmada Booq iyo waliba madaxa xafiiska waxbarashada ee degmada Booq waxa kaloo xafladan ka hadlay qaar kamid ah qaybaha bulshada degmada Booq iyagoo halka ka dhibtay dareenkooda aad bay u salaaman yihiin dhammaan ka soo qaybgalayaasha maamulka degmada odayaasha qurba joogta iyo mas'uuliyiinta heer deegaan ee aan iskula soconay safarkan dhamaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore maanta aad bay farxad weyn u tahay maadaama in badan dugsigan maalinkii la furayay maalinkii la bilaabayay dhismihiisu waxaa xafiiskii igu yimid Aadan Ciise ninka la yiraahdo oo nin aad ay uga muuqatay inuu wax qabanaya ahayd aniguna garab aan ku siiyay kaalintii iga aadanayd ka dawlad deegaan ahaan xafiis waxbarasho ahaan shakhsi ahaan inta midii iga aadanayd anigoo gacan ka siiyay kana caawiyay sidii uu hirgeli lahaa oo u qabsoomi lahaa dhismahan quruxda badan ee maanta aan joogno oo xafladeeda halkan ka furay inta kadib dad fara badan ayaa jiro oo qurba joog oo u dhashay deegaanka dawlad deegaanka Soomaalidu cid ilaa ay hadda qaybta gaar ahaan waxbarashada ka qabatay dhismo noocan oo kaleente maan arag waa markii ugu horeeyay oo ay qabtaan qurba joog u dhalatay degmada Booq iskuulkan waa mid aad iyo aad ay bulshada ugu baahnaayeen waa mid ay in badan sugaayeen dawladda deegaanka Soomaalidu in badan ayay iskuulo hoose dhexe u soo dhistay maanta dadaal ka yimid xaggooda iyo abaabul xaggooda ka yimid waxaa qabsoomay inay dugsi sare halkan ugu dhisaan dhismo aad u qurux badan xafiis ahaan iyo dawlad ahaanna annagu kaalinta nagaga aadan inaan kaga qayb qaadanno oo ah wixii qalab ee loo baahan yahay wixii macallin ee loo baahan yahay iyo wixii manhaj ee loo baahan yahay ee lagu dhiganayo oo carruurta degmadan u dhalatay ay ku dhigan karaan kaalinta nagaga aadan xafiis ahaan iyo dawlad ahaan intaba inaan ka soo baxno ballan baan idinku qaadaynaa diyaar baan u nahay waxaa hadda hortiina ka muuqdo bahalo la geliyo steel boxyada la yiraahdo balaasmooyinka la geliyo
oo halkaan la keenay oon annagu xafiiska waxbarashada heer deegaan ka soo rarnay waxaa kaloo yaallo oo bakhaarka saakaan ugu tagnay qalabkii balaasmaha ama tvgii slide-ka ahaa oo lacag aad u fara badan laga soo bixiyey oo loogu talagalay inay balaasma media u ahaado oo ardayga ka dhiganayo Addis Ababa iyo ardayga booq ka dhiganayo dugsiga sare inay mediaga kala wada socdaan hal macallin oo wada dhigo inay ka mid noqdaan ummadda dawladda Soomaalida iyo ummadda guud ahaan dalka Itoobiya wax ka baranayso kaalintay wax ku baranayaan iyo electronic ay wax ku baranayaan inay halkooda ayagu joogaan ay ku helaan waa mid aad maanta loogu farxi karo midda kaleento annagu haddaan nahay dawladda Soomaalidu dhanka waxbarashada horumarka guud caafimaadka waxbarashada biyaha beeraha in badan baa wax laga qabtay degmooyinka guud ahaan waxba laga qabtay degmadan booq waxyaabo aad u fara badan sanadkan hadda gudihiisa waxaan u ansixinay dugsi sare oo fasalka 8aad ardayda ka baxday ee waysay inay u gudbaan fasalada 9aadka iyo 10aadka inaan u soo ansixinay kadib markaan u soo dirnay team la ogaaday ardayda fasalka 8aad ka baxday inay meelay wax ku bartaan la yihiin inay halkaas fasalkii 9aad iyo 10aad ay ka sii wataan mediagoodii iyo kaalintii ay wax ku baran lahaayeen xafiis ahaan iyo dawlad ahaan inay la garab taagan yihiin dadka u dhashay degmada booq ee ka faa'iideysanay waxbarashada dawlad deegaan ahaan xafiis waxbarasho ahaan kaalmo fara badan ayaa nagaga aadan shaqooyinka waxbarashada shaqooyinka guud ee horumarka shaqooyinka guud ee nabadgelyada degmadan degmo xuduud ku taalo weeyaan waa degmo nabadgelyadeedu ay u baahan tahay in si adag oo aad u firfircoon oo feejigan looga qayb qaato dadka ka soo galaayo dadka ka sii baxaayo fursadda waxbarasho lafteeda cidda ka faa'iideysanayso inay ay ciyaalkii u dhashay degmadan ay meel kale ka baxsan dalka ay waxbarasho u aadaan waa wax annaga mas'uuliyad naga saaran inaan ka celino aynan aadin waxay u baahan yihiin halkoodan ay ku helaan waana midaan hadda u nimid oo nooga soo tagnay jigjiga kaalmo badan baa marka bulsho ahaan adinka idinku aadan kaalmadii xukuumadda iyo deegaanka kaga aadan waan ka soo baxaynaa waxaa jooga madax xafiiseedka waxbarashada degmada waxaa jooga maamulayaal waxaa jooga macallimiin kala duwan waxaa jooga supervisor kala duwan bah waxbarasho fara badan oo kala duwan baa joogto ayaga ayaa reportiga saacad walba meeshii wax marayaan nala soo socodsiinayo annagu marka ka dawlad deegaan ahaan ka hogaamin sare ahaan adinkana hal arrin baan rabnaa inaad commitment gashaan annagu xafiis ahaan iyo dawlad ahaan wadiyaar baan idinla garab taagannahay qurba joogtii dhismahan hadda aan harkiisa taagannahay ayay dhiseen khayr Allah ka siiyo adinka marka bulsho ahaan inay wax walba la idin yiraahdo bulshoy ama qurba joog baa idin qabanayso ama dawladdii baa idin qabanaysa ma waa inay kaalintii shacabka ka qaybgalkeedii meesha ay timaadaa shacabka waxa wax ku baranaya meeshan qurba joogta ciyaalkooda maaha waa caruurteennii waa inteenaan meesha fadhiso caruurtii aan dhalay iyo waalidiinteenni waxaa loo baahan yahay iskuulka waxbaa ka dhiman marka koobaad dhulka loo cabiray wuu ku yar yahay iskuul ahaan iskuulka dhulkiisa hala bixiyo maamulka degmada maamulka hoose qabalaha intaba idinka oo kaashanayo dhulka hala ballaariyo midda labaad darbigii baa ka dhiman waad aragtaan albaab baa lidin sameeyey sayskii laga bilaabi lahay baa lidin sameeyey waxaa lidinkaga baahan yahay ayadoo ay qaban karaan qurba joogto ay dawladda deegaankuna dhisi karto inay adinka aad dhisatiin baa la rabaa si loo dareemo lahaanshaha aad leedihiin lax jeclana ay idinkaga gasho in lacagtiinna aad u hurtaan inay ilmihiinna wax ku bartaan oo derbigaas aad ku wareejisaan meesha ood ku oodaan marka taa ma ballan qaadi karnaa ma ku heshiin karnaa inaad diyaar u tihiin inaad dhisanaysaan derbigaas ood bixinaysaan ka qaybgalkii dadweynaha loogu talagalay diyaar ma u tihiin adinka idin weydiinayaa waa sax marka waxaan u baahannahay hadduu Ilaahay yiraahdo annagu meeshan waa magaaladaani waan imaan doonnaa si joogto aan u dabageli doonnaa waan la soo xiriiri doonnaa mas'uuliyiinta noo joogo maamulka degmo ilaa iyo kuwa waxbarashadaba waxaan u baahannahay marka in waqti kooban derbigaas lagu dhisaa oo aynan qaadanin waayahay oo lagu kala tagaa guddi inta iska dhex sameeyaan guddiga waalidiinta intay guddiga waalidiinta istaagaan oo maamulka ay la shaqeeyaan waxaa loo baahan yahay in waqti gaaban aad ku ballan qaadaan waxaan hubaa haddii aan isku darnaa konton riyaal inaan dhisi karnaan hubnaa haddaan dhagaxaanta baabuurteenna ku soo qaadno
jaayga baabuurteenna ku soo qaadno xoogana annaga aan bixinno waxa nooga bixi karo waa shamiitadiina lacagta aan kontonka riyaal iska aruurinaa waan ku dhisan karnaa macnaha ummaddana waxaa ugu qaalisan inay ayaga wax qabsadaan oo aynan noqonin ummad un dad kale wax ka sugaayo ama shakhsi kale wax ka sugaayo waxaa xaqiiq maanta markaad iskuulkaas oodataan birri xarumaha kalenta caafimaadka iyo biyaha iyo xarumaha kale dawladdan inaad ilaashanaysaan adinkana aad arki doontaan awooddiinna aad wax ku qabsan kartaan laakiin in la idin tusaa awooddiinni aad wax ku qabsan lahaydeen in la idin tusaa waa wax meesha ku jiro oo la idin abaabulaa marka abaabulkaas ayaa ugu wanaagsan abaabulkaasna waxaa u xil saaran kow waalidiinta carruurta ay meeshan wax ka baranayso iyo kuwa kalente ciyaalkooda ay soo korayaan ee doonayay inay ku hiirsadaan carruurtaas kalente wax baranayso kale inay noqdaan inuu qofka yiraahdo maaha aniga ciyaalkayga ma dhigtaan kaliya ciyaalka dhiganaya kaliya ma dhalinyarada odayaasha kuwa kale carruurtooda aynu waxbarashada gaarin way gaari doonaan mustaqbalka waa sheer ay ku leeyihiin marka waa qayb ay ku darsadeen marka waa in lagu darsado qof walba oo degmadan u dhashay waa in lagu darsadaa sida maanta aan miidiyaga idinkaga eeganayno oon birri u imaan doonno ayaan hadduu ilaahay yidhaahdo maamulka degmada iyo bahda waxbarashada deegaanka iyo degmada inta joogtaba aan weydiin doonnaa xaguu marayaa iskuulkii booq saan kagama hari doonno waayo qofkii bilaabay ee warqaddii ugu horraysay lagu ansixinayey qurba joogta diyaar inay u tahay u soo diray aniga ayuu ahaa halkaana maanta aniga ayaa ka furay oo u imid hadduu ilaahay yidhaahdana waan daba taagnaan doonnaa ilaa iyo heer uu ka gaaron aragno dhallinyar ka soo baxday oo jaamacadaha dalka gasho marka adinka bulshooy marka bulshada waxaa looga baahan yahay inay ilaashadaan iskuulka waad aragteen waa wada muraayado iskuullada annaga aan dhisna structure gooni buu leeyahay nimankan laakiin design gooni ay keensadeen structure-ka annaga aan dhisna albaabkoo kalento inuu hadda muraayado ahaado ciyaal baa meesha wax ku baranayo dhagaxtuur baa dhacayo way isdagaali karaan way iskula kordhici karaan wuu jebi karaa marka albaabkaa marka inuu lax jeclo ay idinka gasho carruurta lafteeda marka la soo diraayo akhlaaqdooda la ilaaliyo ciyaalka iskuul kaliya inaan loo soo dirino iskuulka xataa aanan loo qaadanin meel ciyaalka la iskaga madaluufiyo la iskaga dabadaaliye in ciyaalka markay wax soo bartaan ama siday wax u soo dhiganayaan in lagu kontaroolo xaafadda markay yimaadaan marka hore waxaan salaam u soo jeedinayaa dhammaan shacabka ku nool degmada booq dhallinyarada haweenka odayaasha culimaaudiinka iyo dhammaan maxaan idhahdaa shacabka iskugu yimid meesha iyo ardayda iyo marka xiga waxaan salaamayaa oo salaan u soo jeedinayaa mas-uuliyiinta heer deegaan ee nala socotay uu ka mid yahay mudane abubakar maxamed khaliif oo ah madaxafiiseed ku-xigeenka xafiiska waxbarashada cumar daahir xoosh oo ah madaxa kulliyadda farsamada gacanta iyo khayraadka biyaha xildhibaan cabdirasaaq rashiid cumar iyo xubnaha kale ee nala socday marka aniga oo ku hadlaya madaxa xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida mudane cabdi maxamuud cumar oo aan idinka silo salaam ballaadhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxa aan si gaar ah salaan ugu soo jeedinayaa mudane aadam ciise cali aadan dhagax oo ku magac daray aadan dhagax oo sabab u noqday jaaliyadda ku nool dalka Mareykanka inuu isku soo abaabulo inuu mataqaanaa hantidii la geliyay dugsigan inuu mataqaanaa oo isagu intuu isxilqaamay ka soo ururiyay isla markaana maalgelin sameeyay ayaan mahad gaar u soo jeedinayaa sida aan ka warqabtaan hadda ka hor waxaa jirtay in aadan intuu isxilqaamay inuu degmadan booq oo u dhisay dugsi dhexe isla markaana intay bulshada ka codsatay in loo dhiso dugsi sare inta uu codsigiisii aqbalay oo bulshada ka aqbalay oo uu abaabulay mujtamaca ku nool dibadda ee u dhashay degmadan
dugsi sare taasoo ay ka aqbaleen uu ka aqbalay codsigii bulshada fuliyeyna aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ajri iyo xasanaadna ilaahay ha ka siiyo ayaan leenahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay oo aan si gaara mataqaanaayay ula dardaarmayaa bulshada aan ka qayb qaadan horumarka ee u dhalatay degmadan in ay ka qayb qaataan kuwa dalka ku nool iyo kuwa dibadda ku nool labaduba waayo keliya ma aha bulshadu way fara badan tahay gaar ahaan degmadan booq dhallinyartii u dhalatay odayaashii u dhashay dalka iyo dibadda way joogaan maalqabeennadii way joogaan marka in aad ka qayb qaadataan inta aan ka qayb qaadanay oo aad keliya ta iskuul keliya ma aha caafimaadkii baa loo baahan yahay in la sii ballaariyo dugsigana loo baahan yahay marka inaad ka qayb qaadataan ayaan iyadana idii soo jeedinayaa oo dadaalkaa ay muujiyeen uu noqdo mid tusaale ah maanta ta kale waad ogtihiin dowladda deegaanka soomaalidu waxay dadaal dheer ugu jirtaa qorshayaal ay dhigatay taasoo lagu fulin doono 5 sano marka bulshadu haddii ayna dadaalin oo ayna dadaal la imanin oo ayna dowladda garab istaagin dowladda keligeed baahida ma dabooli karto marka waxaa loo baahan yahay in aad la timaadaan dadaal waa dadaasheen run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay maxaan ku dhahdaa dadaalka aad samayseen inaad dadaalkaas aad sii kordhisaan baa loo baahan yahay oo dowladdiinu aad garab istaagtaan dowladduna waxa weeye waxaan rabaa maanta inaan halkan anoo ku hadlaya madaxa xukuumadda in aad mataqaanaay xukuumaddu ay la garab taagan tahay wax alla wixii looga baahdo si dugsigani ardaydii dugsiga dhexe ka baxday ee tagi jirtay meelo kale si ayna u tagin dugsiga qiimaha leh la dhisay in laga dhigo mid shaqeeya isla markaana ay xukuumaddu wax alla wixii ay looga baahdo iyada oo xafiiska waxbarashada iskaashanayaan in wax wixii ay waxbarashada xafiiska waxbarashadu ka soo codsado inaan u suura gelino ayaan ku rajo weynahay kuna ballan qaadaya ta kale waxa weeyaan markii ugu horeysay waxa weeye Abubakar baa kolley ballan qaaday laakiin waxaan jecelahay mar labaad inuu xafiiska waxbarashadu ballan qaad buuxa sameeyo sidii u qalabayn lahaa dugsigan oo isla markaana waxa la wuxuu hadduu noqoto sawirado hadday noqoto kuraasi hadday noqoto macallimiin waxa la wixii mataqaanaa qalabayntiisa ah kolley qalabaynta bar baa la dhameystiray waxa weeyaan bar baa halka ka muuqdo sida plasmaga oo kale iyo way yaalaan waan aragnay laakiin haddana waxa la wuxuu u baahan yahay dugsigu ee dugsiga mataqaanaa mid shaqeeya ka dhigaya inay halkan bulshada hortooda ku ballan qaadaan annaga ka xukuumad ahaana waan garab taaganahay ugu dambeyn aanan hadalka ku sii dheeraanayn bulshadan u dhalatay degmada booq waxaa looga baahan yahay dugsigan quruxda badan in ay ilaashadaan nin kastaaba ninka xigaa ma jirto nin kasta awlaadiisa wax ku baranaysa waad ogtihiin hadda ka hor ninka aan ninkii shilimo yar haysta unbaa ilmihiisa markuu dugsi hoose uu dhameeyo ama dugsi hoose uu dhameeyo meel uu wax ku barta geyn jiray laakiin maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin waan ku faraxsanahay anaga ka xukuumad ahaan inaad heshaan dugsi sare oo maxaan ku dhahdaayay bulshadiinii iyo dhalinyartiinii iyo caruurtiinii iyo awlaadiinii inaad halkan waxay ku bartaan marka nin kasta waxaa looga baahan yahay oo waalid ah inuu muujiyo lahaansho ayaa loo baahan yahay marka inaad ilaashataan dugsigiina aad ka ilaalisaan maxaan ku dhahdaayay waxyaabaha daranyada oo kale isla markaana aad mataqaanaa ilaashataan ayaa loo baahan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa mudanayaasha nala socday xagga dowlad deegaanka Soomaalida golaha kaabineedka kamida Abubakar Ibrahim iyo Cabdirasaaq iyo mas'uuliyiin kale oo nala socotay wafdi aad u ballaaran baan hayn marka ku xigana waxaan salaamayaa maamulka degmada Booq oo halkan nagu soo dhaweeyay marka ku sii xigtana waxaan salaamayaa marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan furitaanka dugsiga sare ee Booq oo sida ka muuqata lagu bixiyay kharash aad u badan miisaaniyad aad u badan iyo waqti aad u badan ba lagu bixiyay dad Mareykanka degan
marka saddex warshadood baa hadda Dirdhaba laga furay saddex isku mar hadda la furay oo bilaabay wax soo saarka marka barnaamijkan u baahannahay waxa weeye waxa la yiraahdo kootrabaanka waxa la yiraahdo inaad la dagaalantaan qof walbaba muddo yar oo gaaban inuu raalli ku noqdo inta uu wax soo saarka waddanku idin soo gaarayo inaad u aragtaan dawladdu waxan ay idin gelinayso waxbarashada gelinayso dhaqaalaha ay gelinayso laamiyada gelinayso korontada gelinayso wax oo dhan ay gelinayso waxay u baahan tahay hard currency in la helo horay un baa nalaga degay xaggaa nalaga degay sababta meesha loo degay cadaadin ma aha dhibaatana ma aha mashaariicda inagu aanu wadano inay waddanka oo dhan ay gaaraan waxay ku xiran tahay inaynu lacag adag helo oo dawladdu lacag adag inay hesho marka muddo yar oo qariib ah inta ay wax israacayaan inaad u dulqaadataan baan doonaynaa haddii alla idmo waana inaad u dulqaadataan taa markaan ka gudbo Ibrahim baan ku soo dhaweyn doonaa laakiin Abuukar oo aad iyo aad u mahadsan iskuulkana dhibaato aad iyo aad u weyn intii uu aadan wareegayay iyo intii la dhisayayba ka warhayay maanta isagaynu gacanta u gelinaynaa iskuulkan sidii gacanta loogu geliyay ka soo baxaan tayaduna waxa weeye in la tayeeyo iskuulka la tayeeyo wuxuu mar uu dhaweyd uu sheegay waad aad iyo aad baad u maqlayseen waa runtii waxaan idinku daraynaa macallimiin Highlander oo meel fog laga keenay iyo kuwa kale la keeni doono yaa jiri doona hadduu Abuukarna soo diro halkanna aad kabaha uga baxdaan ama aad tiraadaan waa kuwa macallimiin oo xaggaasa laga soo diray haddaad idinku uga baxdaan waxa loo soo dirayna caruurtiinni ay tahay macallinku uu soo cararaya Abuukarna meesha kuma celin karo soo sida ma Abuukar haddaan macallinka intensive la siin haddaan la soo dhaweyn haddaan guri kireed laga bixin haddaan raashin la siin waad ka warqataan degmooyinka kale waxay siiyaan haddaydan idinku qabsan waa la igu soo qoray macallinku kuma joogi doono mahad ilaahay baa iska leh waxaan salaamahayaa ugu horeyn maamulka degmada Booq oo nagu soo dhaweeyay annaka magaalada tan noona suurageliyay xafladda tan inaanu samayno iyo inta kale oo meesha iskugu timid waxaan kale oo aan rabaa inaan xuso number 1 maamulka kilalka shanaad madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar waxaan xusahayaa wakiilka uu noo soo diray Ibrahim waxaan kale oo halkan inaan ka xusan rabaa Abuukar oo bilowgii iskuulka kan markii aan waraaqaha soo qaadaynay ilaa maanta isaga aan furayaashii u dhiibnay noo suurageliyay inaanu shaqadan qabanno waxaan kale oo xusahayaa injineer Cabdirasaaq Rashid oo degmada tan laga soo doortay oo ay waajib ku ahayd inuu yimaado waxaan kale oo xusahayaa Cumar Daahir Xoosh oo ahna xildhibaan federaalka ah oo laga soo doortay gobolka kan laga soo doortay isagii Cabdirasaaqba waa si gaara sababta ah ayagu waxa weeyaan waa gobolka waa laga soo doortay gobolka kan labadaba waxaan mahad u celinayaa kale dadkii shaqadan soo qabtay oo noo dhammaystiray oo uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah sheekh Soomaal haddana halka kan ka soo jeeda rajanka kan oo gurigiisa ku yaala oo barabartigiisa iyo hotelkiisa aanu seexanado ruux Soomaaliyeed waxaan kale oo rabaa inaan xuso dadka iskuulka kan soo dhisay oo muddo gaaban ku suurageliyay inuu dhismo muddo 9 bilood ah oo uu ka mid yahay Shukri Xaashi Deer uu ka mid yahay Fanax Colaad iyo dadka kale oo badan
oo hawsha weyn ka qaatay iskuulkan hadday waa mahadsantihiin kulligiin laga soo bilaabo heer maxaan ku idhaahdaa degmo ilaa maxaan ku idhaahdaa ilaa madaxweyne hadday waxaan leenahay waa mahadsantihiin maantana hadday culayska kanna soo hayay 10kii bilood oo ugu dambeeyey laazum wuxuu maanta korka ka fuulay wasaaradda tacliinta iyo wasiirka xigeenka waa mahadsantihiin kulligiin dhammaantiin kulley waad arkaysaan dugsigan aadka u quruxda badan walaalaheenna qaaliga ah ee qurba joogta ee u dhashay degmada Booq iyagoo arkay in loo baahan yahay dugsigan sare ee degmada looga baahan yahay ku deeqay inay u dhisaan shacabkooda degmada Booq iyagoo ay lacagta ay ugu deeqeen ay dugsigan ku dhiseen ay dhan tahay 7 milyan iyo 200 kun waa arrin aad iyo aad qaali u ah ku dayasho mudan qurba joogta u dhalatay deegaanka gobolka iyo degmadana inay ku daydaan mudan marka waxaan leeyahay aad baad nooga farxiseen qurba joogta u dhalatay deegaanka qurba joogta kalena waa inay ku daydaan halkan waa dugsiga sare ee Booq waxaana taagan dhammaan macallimiintii dugsiga sare waa macallimiintii maamulihii dugsiga sare waa ninkan waxa la yiraahdaa Maxamed Baldaha maamul ku-xigeenkii Kalay Baldaha waa kaas meesha taagan kuwana waa macallimiintii macalinka waa macallin Gocosh Baldaha waa master macallimiintii sanadkan 2004 waa kuwa maamul ku-xigeenkii dugsiga sare Kalay Baldaha kuwana waa macallimiintii kale ee sanadkan 2004 nala soo dhaadhiciyay nimankana waa macallimiintii Masgano Baldaha kuwana waa ardaydii marka dhammaan macallimiinta degmada Booq waxay ka kooban yihiin dugsiga sare 24 macallin ayaa dhigto waana ardayda dhigatana 498 arday baa dhigato bilbaaratoodina waxa dhigta 112 macallin 112 arday ayaa dhigato dugsiga sare ee Booq naturalka waa 75 socialkana waa 48 arday ayaa dhigato كل إن شاء الله وحرجينا إن أي أرض سنة قدام بقى كسب بنانت ما دام أي جيران تدور دكسي أو سديدات دكسي دحاء سنة قدام أنا أسوق بدونان سجالات هدو إلهي راض كل سكول كان وضو جدا وحكي كوبية هاي سديد يتمن قلب كوبية وحنا لسه شخصي موادنا أول شيء دمنا بخ وحالي رامج عيسى آذن نجح بكم قاعدير هاي وحنا كوب حذي ميزانية كوب حذي وتدوم مليون إلا بقول كون أبر oo Ethiopia lacagteeda u dhiganto marka waan ku faraxsanahay maanta macallimiintii hooyooyinkii waalidiintii dhalinyaradii ayaa ka soo qayb gashay xafladan balaaran ee lagu furayo xafsadka ku xigeenka waxbarashada kilka ka soo qayb galay xafladan furitaanka lagu furayo iskuulka dugsiga sare ee Booq anigoo ah gudoomiyaha ururka macallimiinta ee degmada Booq waxaan halkan ka salaamayaa mas'uuliyiinteena nooga timid heer deegaan sida wasiirada wasiir ku-xigeenada xamaareeyayaasha dhammaantood waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana ku soo dhawaynaynaa gacmo furan ilaahay baa mahad leh aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dugsiga sare ee laga furay maanta degmada Booq wuxuuna ka qaadan doonaa kaalin muhiim ah ayuu ka qaadan doonaa xagga waxbarashada annagoo ilaahay mahadiis dugsi hoose iyo dhexe iyo sare ardaydeena ay wax ku barato waxbarasho lacag la'aan ah ilaahay mahad ka gaarto dawladdeena deegaanka Soomaalida ilaahay mahad ka gaarto dawladdeena federaalkana mahad ka gaarto inagoo hayna maadaama aynu nahay dadweynaha degmada Booq waxbarasho lacag la'aan ah dawladdeena ay noo heelan tahay waxaan gacmo furan ku soo dhawaynaynaa oo aan halkan ka salaamaynaa sheekha dhisay dugsigan quruxda badan Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa Dr. Aadan Ciise oo ka mid ah dadweynaha macnaha u dhashay deegaanka Booq kana mid ah qurba joogta ee kharashka bixiyay dugsigan lagu maalgeliyay
آدي آد بانو مهد علينا إلهينا مهد كقاطان لأنها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته madaxa arrimaha xisbiga ee degmada Booq ugu horeynta waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha halka isugu yimid faraha badan quruxda badan sida sharafta leh halkan maanta isugu yimid ayaan salaanta islaamka u soo jeedinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib walaalayaal waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa xubnaha inooga yimid xukuumadda deegaanka Soomaalida jidka dheer iyo wadada dheer soo qaaday ee halkan inay maanta inoo furaan dugsigan dugsigii sare ee degmada Booq isugu jira wasiirada iyo dhammaan ka socda xafiiska madaxweynaha ayaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa marka xigta waxaan mahadnaq ballaaran soo jeedinayaa xubnaha ka qayb qaatay isku dugsigan dhismahiisa hantidiisa lacagtiisa fikirkiisa iyo dadaalkiisa aadan ninka la yiraahdo aadan ciise hadda la lahaa aadan dhagax laakiin anigu waxaan leeyahay maanta hal la yiraahdo aadan horumarineed hal la yiraahdo baan leeyahay sidaa darteed waxaan leeyahay isaga iyo xubnaha la midka ah sida sheekh maxamed sheekh cabdullaahi oo kale iyo kuwa la midka ah dadaalka iyo waxtarkaba ka geystay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa mahaduna ka gaadha hadii ilaahay yiraahdo inta kadib maadaama dadkii uu laayacay hadal dheer oo kale loo bisabaano laakiin waxaanu ballan qaadaynaa hadii ilaahay yiraahdo aniga oo ku hadlahaya afka shacab weynaha degmada Booq waxaan ballan qaadayaa ama aan ballan qaadaynaa anoo afkooda ku hadlaya inaan iskuulka naloo dhisay ilmahanaga iyo dadkana inay wax ku bartaan kharashka inta la eg 7 milyan iyo 200 oo bir ah ay ku 200 oo bir ay ku baxsheen walaalaha iyaga inaan inagana deydkiisana xayirno dadaal dheeraadna ka geysano muraayadihiisa ilaalino waxbarashadiisana aanu kor u qaadno hadii ilaahay yiraahdo taasa anoo afka Booq shacabka Booq ku hadlay ayaan ballan qaadayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waxaa la dhahaa deeq maxamuud faarax oo ku magac dheer caweeye waxaan ahay ardada dugsi sare ka dhigata degmada Booq degmada ka tirsan gobolka Hordheer maanta waxaa aad iyo aad farxad igu ah iskoolka intaas oo aan soo sugaynay in maantana lagu wareejiyo mas'uuliyiinta ka yimi dawladda deegaanka Soomaalida iyo qurbo joogtii noo dhistay iskoolkan dugsiga sare maanta run ahaantii farxadeeda wax aad iyo aad aan loo soo koobi karnay ka tahay waayo waxaanu nahay jiilkii soo kareeyay maanta anagu markaanu ka baxno waxaa galaya jiilka kale ee soo kareeya run ahaantii maanta farxadeeda waan ku celcelinayaa aad iyo aad baan loo soo koobi karin waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo aan leeyahay waa aabaha horumarinta dowladda deegaanka Soomaalida waxaan leeyahay waxaan noqon doontaa ama aan ku bixinayaa the key of development waxa tahay free horumarinta waxaan ka rajaynaynaa in ma garanaysaa aan noqoto mid ku guuleysta dhanka horumarinta iyo maamulka suuban waxaan halkan ka salaamayaa iyana wafdii ballaarneed ee ka timid dowladda deegaanka Soomaalida oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo la taliyaha madaxweynaha dhanka sharciga iyo ma garanaysaa wasiir ku-xigeenka farsamada kuleejooyinka iyo ninka dhanka yaga qaayaha weyn aad uga fadhiya ee lagu magacaabo aadan cali aadan dhagax run ahaantii waxaan oo ardaya ama waxaan oo dad ahaan maanta waxay u taagan yihiin ma garanaysaayay sidii iskoolkan maanta farxad ay ku dheentay aan loo soo wareejiyay waan idin salaamayaa daba intay xafladu socotay ayaa waxa aadan ciise cali la guddoonsiiyay shahaado sare oo ka turjumaysa dadaalkiisa ku saabsan horumarinta arrimaha waxbarashada oo looga siday madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar xafladan waxaa goobjoog ka ahaa ardayda wax ku barata degmada Booq gaar ahaan magaalada Booq oo iyagu si weyn u camiray xafladan ayaa ahayd xafladii ugu ballaarnayd ee lagu qabto degmada Booq isla markaana lagu furiyay dugsi sare oo ay leedahay magaalada
booq ee gobolka Wardheer haddaba xaqiiqda jirta waxa ay tahay in dawladda deegaanka Soomaalida ay ballan qaadayso in bulshada ay la garab istaagto dadaalka ay la yimaadaan shacabka isla markaana lagu dhameystirayo wixii ka dhiman sida qalabka waxbarashada kuraasta miisaska manhajka iyo aalada loo yaqaano plasma screenka iyo waliba macallimiintii ka howlgal lahayd dugsigan inta kadib ayaa mudane aadan ciise cali dhammaan furayaasha dugsigan sare oo ka kooban 18 qol iyo waliba xafiisyo waxa uu furayaashii ku wareejiyay wasiir ku-xigeenka waxbarashada dawladda deegaanka Soomaalida mudane Abubakar Maxamed Khalife ugu dambeyntiina waxa bulshada ku nool degmada Booq ee gobolka Wardheer lagu dardaarmay inay la yimaadaan dareen lahaansho isla markaana ilaashadaan dugsigan sare ee la hirgeliyay maadaama ay iyagu carruurtooda ay wax ku baranayaan isla markaana ka qayb qaataan dhammaan geedi socodkiisa ha noqoto ka qaybgalka ardayda waxbarashada oo xilliyada hore ay fursado noocan oo kale ay hore u soo marin maadaama bulshada ku dhaqan xilliyadii hore ay ka caban jireen xagga dugsiga sare oo meelo kale carruurtooda waxbarashada ama degmooyin kale ay u tagi jireen haatanse maadaama ay ku heleen gudaha degbada ee magaalada Booq inay carruurtooda kula dadaalaan arrimaha waxbarashada ugu dambeyntiina waxay mas'uuliyiintan heer deegaan ballan ku qaadeen inay garab istaagi doonaan dugsigan dhammaan waxyaabaha uu u baahan yahay iyo geedi socodkiisa ugu dambeyntiina waxa mas'uuliyiintii heer deegaan maamulka degmada Booq qaybaha bulshada ay ka kooban tahay iyo waliba ardayda mahadnaq ballaaran waxay u soo jeediyeen dhammaan intii ka qayb qaadatay hirgelinta iyo dhameystirka dugsigan sare ee laga hirgeliyay magaalada Booq dadkaas mahadnaq iyo waliba hambaliyada loo soo jeediyeen waxa kamid ahaa mudane aadan ciise cali oo loo yaqaano aadan dhagax xaaji kamaaludiin xaaji cali sheekh maxamed sheekh cabdullaahi iyo waliba cabdullaahi cumar bootan waxaana lagu booriyay in ay sii laabaan dadaalkooda ku saabsan horumarinta arrimaha waxbarashada kajaaliyad iyo waliba ganacsato ahaan dawladuna waxa ay ballan qaaday in mar walba hiil iyo hooba ay la garab taagan tahay cid kasta oo isku dayda ka qayb qaadashada howlaha horumarka ka socda deegaanka Soomaalida ognahay degmada Booq ee gobolka Wardheer garabkeena waxa fadhiya mid kamid ah jaalidaha dibadda marka hore magacaagu saddexan iyo muddada kugu dambeysay degmada Booq Adam Ciise Cali oo ku magac dheer Adam Dhagax degmadan waa degmadan ku dhashay yaraantaydii from Wardheer ilaa halkaan joogay waxaan kamid ahaa siday u badnayd Soomaalidu waqtigaas boqolkiiba 90 ama ka sii badan dadka reer guuraaga maaragtay maalinba roobku meeshu daga iyo cawska la guuri jiray marka eriyada tan waxay ugu dambeysay 62 waxaan uga baxay halka kan nasiib darrada ay haysay waxay ahayd in aan safar dheer galo sidaan waxbarasho ku helo halka kan wax jaanis ah oo waxbarashahu ma jirinin waxaan bilaabay socdaalkayga dhowr iyo 50kii waxaan wax ku bartay Kismaayo iyo Xamarba elementary Xamar baan ku qaatay intii ka dambeysayna waxaan wax ku qaatay Kismaayo marka goorma ku horeyso dib ugu soo noqotay degmadii aad ku dhalato degmada haatan ma aan ku suganahay ee Booq waxaa jirtay waagii hore markaan ardayga ahaa sidii dhici jirtay iskuulka marka la xiro ayaan booqasho ku imaan jiray markii ugu dambeysayna waxay ahayd 62 62 hadda ay igu xigtay socodka kan hadda aan ku imid waxaad hadda ku suganahay waa degmada Booq waxaan maanta aan ka qayb galaynaa furitaanka dugsi sare oo hadda laga furayo degmadan Booq marka kaalinta dugsigan aad ku lahayd iyo waliba maxaa kugu dhaliyay in aad degmada aad ku dhalato oo in ka badan 40 sano dalka dibadiisa ku maqnaa inaad ka qayb qaadato howlaha horumarka gaar ahaan bal xagga waxbarashada waxay igu dhaliyay waxay ahayd la halka kan aniga aan ku dhashay oo aan ka waayay chance aan wax ku barto halka kan waxay igu dhaliyay markaan ogaaday oo aan la socday hadda 2004kii ama 2004 ayaan waxaan helay some documenti oo laga soo duubay Booq oo iskuulka elementary-ga ahaa aad u dayacnaa
ka bacdi odayaasha magaalada joogay baan waxaan weydiiyey Magin Ribera markaas waxa la igu yiri may waxa nooga daran dugsigii dhexe marka socdaalkaygii hadda waxaan ka bilaabay aniga in aan qayb ka qaato aan wax ka dhiso dugsigii dhexe ka bacdi haddana baahidii baa timid iskuulka kan waxa la wixii ku baxay ana tabarucaadkeeda bixiya iyadoo anina igu caawiyin waxaan ula jeeday waxay ahayd wixii aniga aan soo maray markaan yaraa oo aan waayay chance aan wax ku barto inaan kuwa iga dambeeya inaan chance siiyo ayagoo aan gurigoodii ka tagin aan ka safrin in ay wax ku bartaan waxaan u sameeyay dayasho inay dhacdo waxaa jira dad badan oo lacag haysta oo ka yimid regionka kan kilal 5 ka la yiraahdo inay ugu daydaan ama Ethiopia kale inay ugu daydaan oo wax fiican la sameeyo aniga waxay la noqotay kulli haddaan wax sameyn hayo wax la igu dayan karo inaan sameeyo wayahay haddaan taa ka yar gudubno hadda dadaalka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ugu jirto horumarinta arrimaha bulshada sharaf fara badan oo madaxweynaha dibadaha oo dadka jaaliyada kala kulmay ayaa jira oo ku boorinayo inay kaalintooda nabadgelyada iyo horumarka ay qaataan marka bal xilliyadaas madaxweynuhu halka tagayay ma kulanteen waa kulannay 3 jeer baan kulannay madaxweynaha mar waxaan ku kulannay barnaamijka BBC-da Jumcada Qubanaha la yiraahdo maalinka bacdi labadayada kulannay ka bacdina waan kulannay oo wuxuu marti qaaday dadka ka soo jeeday region 5 oo businesska ah markaasna waa ka qayb galay maaragtay marka intaana waxaan isdhaafsanay arabaan isdhaafsanay maxaa laga qaban karaa dhulkii iyo seeba dibadhiskii loo sameyn karaa dalka wayahay marka hawshan muddo ayaad ku jirtay oo aad xoolaha ku baxayna adiga aad u hurtay in degmada aad ku dhalatay 42 sano kadib inaad dugsi sare oo sidan aad ka hirgeliso marka bal waa sidii hadda dareenkaaga dareenkaygu wuxuu yahay bilxaqiiqdii waa waxaan ula kacay dugsiga kan lacag baan u huray waxaan u sameeyay sida aan horey kuugu sheegay inuu noqdo road map inuu noqdo oo dad badan ay igu daydaan iskuulka sanadkan hadda lagu jiraan bilownay waana u dhamaaday hadda bil ka hor buu dhamaaday sababtuna waxay tahay waxaa jiray single kaliya oo financialka haddii dad badan xataa dad kale ay la jiri lahaayeen waxaa iska suurtooda inuu dibdhac ku imaan lahaa sababta hadiga jeer waxaa jirta halkaa dhiman ama qof kale la sugahayaa marka hadday talagalkaygu wixii aan waayay aan mar kale ku celiyay wixii aan waayay markaan tacliinta u baahnaa inaan ay helaan racan iga dambeeya dadka wayahay mar haddii hawshii haatanba ay dugsiga ay u taagan tahay maanta furitaankiisii hadda aan u fadhino markaad is aragteen ka xukuumad ahaan madaxweynaha iyo wasaaradda waxbarashada oo ku saabsan sidii dugsigan u noqon lahaa dugsi gutaa waajibaadkiisii shaqo maxaa ku baxay الحقيقة مدحوينها iyo wasaaradda tacliinta labadaba aad baan ugu mahad celin hayaa si fiican bay ii soo dhaweeyeen especially labaduba madaxweynuhuna aad buu ii soo dhaweeyay wasaaraduna aad iyo aad bay ii soo dhaweysay maaragtay marka waxaan rajaynayaa inaan wixii kale oo aan la qaban karo ayana in aan gacan ka geysan doono hadii Allah kulley baahida waxbarashadu ma dhamaato dugsigan waxaa laga yaabaa waxyaabo kale inuu usii baahan yahay tusaalahaan library-ga oo kale dhamaystirka dayrka oo kale gacansiinta kaabayaasha waxbarashada marka ma tahay mid aad halkaa kasii wadi doonto waxyaabaha kale ee suurtagalka inuu u baahnaan karo dugsigan
waxaan rabaa ummadda daawanaysa in aan u sheego hawshaydii ma dhammaanin hadda waxaa soo socda iskuul kale oo ah boarding school oo seexashada oo aan ugu talagalnay ku bilowga 240 waxaan u sameynhayaa xanuunka ay leedahay baan ogahay baahidaan ogahay waxaa jira dad badan oo reer guuraaya oo aad iyo aad dan yar u ah ma awoodaan ilmahooda inay halka keenaan marka waxaan rabaa bal inaan 240 waana mar dhow baana la bilaabi doonaa haddii alla idmo dhismihiisa la bilaabi doonaa inay helaan dadka masaakiinta ah oo roobka la guura iyo cawska la guura inay ilmahoodii ku soo xireeyaan halka kan iskuulkaas ku xigi doonaa dhabarkiisa ayaan ka dhisaynaa haddii alla idmo kan high schoolka okay dad badan baa hadda ka taawanaya in TV-gan caalamiga ah marka adoo diiradda saaraya in horumarinta arrimaha waxbarashada sida ka qaybgalka xagga dhismayooga oo kale kaabayaasha waxbarashada inta horumarka jecel hadda TV-gan ka daawanaya ay u dhalatay deegaanka gaar ahaan gobolka Wardheer maxaa fariina oo ku saabsan horumarinta arrimaha waxbarashada oo halkan ugu gudbinaysa waxaan leeyahay noloshu hadba meel bay ka bilaabataa nolosha bilowgeedu waa in wax la baraa dadka yar jiinka yar in wax la baraa aniga waxaan ku boorinayaa dadkaas ama Wardheer ka yimid ama kilalka oo dhan ka yimid kilalka shanaad iyo inay ku dayasho ila sameeyaan maaragtay aniguna gacan baan ka geysan doonaa haddii ilaahay yiraahdo anybody oo yiraahdo tacliinta aniga qodobkayga koowaad waa tacliinta sababta dhibta ay leedahay iyo wadada dheer oo aan u galay iyo inta gurigayagii ka tagay meel dheer tago oo aan ku gaajooday oo aan wax badan ka soo maray tan igu kaliftay in aan halkan lacag geliyo waa taas ilmaha iyagu aan meel lagu safrin in ay wax ku bartaan gurigoodii in aadan dad badan waxay isweydiin karaan maadaama waxbarasho la'aan in ka badan 40 sano ka hor aad wadankan aad uga tagtay markii aad tagtay dibadaha bal ka waran heerkaaga aqooneed sida wax u baratay iyo waliba shaqooyinka aad qabatay dabcan haddii ka mid ahayd inaad noqotay bare ama macallin بالحقيقة دي أنا تيدا كواد وحي هاي سيدي أن وحبرن لها معلم نما فول تايم ما سمعين لكن بار تايم بس سمعي ولي جينا ماركتاي ووحى أن ربي إن هذه جير وحبره ضد كير دنت دنجاب كأه أو دولك أن كيمد أنا وهي شقوين بان سو قبتي 10 سنوات بانو شقيي ريلوي كمباني كبعدنا وحانها بيزنس مان الى كوني 984 وحانها قناcsada baan ahaa marka tawacayguna halkaas uu ka yimid aniga ma aragtay xogeed way hada guntii gabagabadii halkan adoo ka faa'iideysanaya fursadan aad ka heshay TV-ga iyo STV caalamiga ah ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ma jira maadaama aan ku suganahay degmada Booq munaasabadii aan u fadhino xariga lagaga jaray dugsiga sare wax fariina oo aad halkan ama hambalyo ah idii ka gacan geysatay hirgelinta dugsigan ka xukuumad ahaan ka gobol ahaan ka degmo ahaan ka jaaliyad ahaan iyo qaybaha bulshada ka kooban tahay degmada Booq ee gobolka Wardheer oo haatan aan ku suganahay بالحقيقة دي Soomaalidu waxay tiraahdaa farkaliyo fool ma dhaqdo dugsiga kan aniga dhaqaalahan bixiyay dad badan oo waxa jira oo ka geystay kaalinta ugu weyn oo ka yahay Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo community-gaba waana ugu mahad celinhayaa kulligood waxaan kaloo u mahad celinhayaa dawladda oo madaxweynuhu ka yahay iyo wasiir Cabdi Maxamed Cumar iyo wasaaradda iyo wasaaradaha kale oo kaliya ma aha
labadaas laakiin wasaarad kasta oo aan u tagay iyo si fiican bay ii soo dhaweysay waa igu boorisay iyo waa haday kaligay ma dhisinin meesha dhaqaalahan bixiyay ma ahane waxa dhisay community-ga iyo kilalka labadaba iyo iyaga gacan iyaga geystay weyn sidii uu ku hirgali lahaa waxaan hambalyeeynaa lambarka labaad waxaan u hambalyeeynaa dadka u dhashay degmada Booq oo muwaadiniinta ah oo muxuu ahaayay u halgamay dalkoodii iyo dadkoodii inay wax taraan oo wax u qabtaana ku talagalay oo dal iyo dabad meelay joogaanba ku tashanaya kuna talagalaya ayaan u hambalyeeynaa waxaan u hambalyeeynaa محمد شيخ إبراهيم محمد شيخ عبد الله شيخ إبراهيم oo aad iyo aad u jecel inuu dadkiisa iyo dalkiisa wax u qabto waxaan u hambalyeeynaa aadan ciise oo asnaa muwaadin dalka Booq degmada Booq u dhashay oo muxuu ahaayay aan aad iyo aad u maaragtay ugu kharash gareeyay dakhligiisii iyo hantidiisii ku macnaha ku maxaayatay ku dhisay degmada si dalkiisa iyo dadkiisaba u anfaco asna oo hambalyeeynaa salaanka bacdi aniga oo ah luul maxamuud liibaan xildhibaan heer degmo oo laga doortay degmada Booq waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay haddaan degmada Booq nahay dadkeeda ama xildhibaanada nahay ama maamulka nahay ama shicibka nahay waxaan aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh oo iskoolkan ama muxuu ahaay jaamacadan loo hirgeliyay iyo sida loo soo abaabulay iyo sida loo soo agaasimay iyo sida sharafta iyo macnaha bilicda iyo quruxda loogu muxuu ahaay miisay waxaan aad ugu hambalyeeynaa sidaas waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol baan ku faraxsanahay caruurta ku faraxsan waayeelka ku faraxsan hooyooyinka ku faraxsan dhamaantayo ayaa ku faraxsan waana hambalyeeynaa waxaan cabdiile ugu hambalyeeynaa oo kaleeto sida uu ugu dhiirigeliyay dadka dabadda jira oo dalkooda oo muwaadiniinta oo u dhashay inay jaaliyaduhu ay wadankooda maalgashadaan ayaan u hambalyeeynaa sida ugu macnaha ugu dhiirigeliyay sidaas ayaan ugu hambalyeeynaa waxaan jecelnahay inuu halka ka sii wado arrimihiisa dhiirigelinta waa ka waxaa xildhibaan laga soo doorto degmada Booq dad badan baa hadda ka daawanaya TV-gan ama jaaliyada dibadda ha u badnaadaan marka maxaad ku dhiirigelin lahayd oo dadka hadda aadan ciise model ahaan baan soo qaadanaynaa maadaama hawshan weyn uu qabtay dadka kale ka dambeeyay deegaanka u dhashay gobolka Wardheer gaar ahaan degmada Booq xildhibaan ka tahay in ay maalgashi ku sameeyaan waxaan ku dhiirigelinayaa sidaas aadan ciise oo kale inay uga daydaan degmooyinkooda iyo muxuu ahaayay muwaadiniinta u dhalatay sida aadan ciise inay ku dayasho sameeyaan dalkoodana ay wax u qabtaan soona koriyaan dalkooda soo kiciyaan baan macnaha ku dhiirigelinayaa kaalinta bulshadana dadku maalgashiga marka sameeyaan wuxuu baahan bulsho firfircoon oo nabadgelyo firfircoon oo horumar ku firfircoon ka war marka bulshada fariintaada ku saabsan dadka inay soo dhaweeyaan bulshada waxaan leeyahay inaad la timaado horta qofku hadduusan baala lahayn shimbirku hadduusan baala lahayn ma duulo wax kasta oo wax qabada waxaa dhiirigeliya bulshada ama muwaadiniinta waddanka u dhalatay ama gobol Wardheer u dhalatay ama degmada Booq u dhalatay ku dhiirigelinaya in ay keenaan dhiirigelin dadka macnaha si ay macnaha wax qabad ballaaran u helaan inay garba u noqdaan soona dhaweeyaan wax qabad iyo dhiirigelin iyo xataa haddii wax loo baahdo waxtar inay la yimaadaan baa ku dhiirigelinaya markii ay soo dhamaatay xafladii xariga looga jaray dugsigan sare ee ku yaala degmada Booq ee gobolka Wardheer ayaan qaar kamid ah gabdhaha wax ku barta degmada Booq gaar ahaan dugsiga sare iyo qaar kamid ah haweenka ku dhaqan degmadan ayaan wax ka weydiin doonaa dareenkooda annagoo ku horeynayna maadaama hadda dawladda deegaanka Soomaalida qaana xafiiska waxbarashada gaar ahaan uu muhiimadda koobaad ama ahmiyadda koobaad uu siinayo waxbarashada gabdhaha marka hore magacaaga saddexan iyo waliba fasalka dhigato iyo dareenka ku saabsan dugsigan sare ee maanta halkan laga furay degmada Booq bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nimco Jaamac Abshir dareenkayguna aad dugsigayguna waa dugsiga sare 11aad
ugu faraxsan yahay dugsiga sare xalfadda ee laga jaray maanta halkan dhammaanna waan mahad celinaynaa maqaawirta isugu timid meesha sida dadweynaha kala duwan maamulka wasiirka waxbarashada kililka maamulaha dugsiga sare madaxafiiseedka waxbarashada kulligan ku faraxsannahay ilaahayna ha noo siyaadiyo maasha allah aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa faadimo yuusuf aadan waxaan ahay ururka haweenka ee degmada booq waxaanu u mahad celinaynaa guryahan quruxda badan oo aanu hadda joogno ninkii noo dhisay aadan ciise waanu u mahad celinaynaa sheekh ayaga sheekh cabdullaahi sheekh maxamed sheekh cabdullaahi isagana waanu u mahad celinaynaa waxbarashada iyo maamulka kor nooga yimidna waanu u mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta halkan dugsi sare oo looga jaray xarigga baanu aad iyo aad ugu faraxsan ardada wax dhiganaysa iyo kuwa dambaba inay higsadaan oo sidaas iyo si kasii fiican wax u sii bartaan ayaanu ku bogaaginaynaa